madaxweyne sida muuqanaysa tan iyo markii lagu doortay iyo xilligaaga ololaha iyo hadeerba taageero xoog leh baad ku dhex leedahay shacabka Soomaaliyeed wala uu jiro mucaarad hadana marka loo barbar dhigo muxaafidka dawladda taageersan shacabka ahi aad buu u badan yahay maxaad ku kasbatay baad leedahay shacabka intaas leeg ee ku taageersan shacabka Soomaaliyeed waa dad runtii wanaagsan xaqiiqo way meel kasta ay joogaan waxa dagaalsan iyaga ma aha waxa dib ku haystan waa iyaga shacabka Soomaaliyeed haddii ay arkaan qof iyaga danooda ka shaqeynaya aniga kaligay maaha qof walba ay arkaan danooda ka shaqeynayo khasab way raaci marka anagu waaba sheegnay waxaan dawladdan dadka iska leh marka inay haystaan oo xafitaan oo ay la shaqeeyaan yaa waxaan ku gaari karnaa mustaqbal wanaagsan iyo horumar marka aniga ma aha waa shacabka dad wanaagsan ah صاحب يالله كسر وراء مركلي مقالك لو عاد حسب المقال كان محنكوك فين دونا ما كجا هذا دونا ورئيسي وبحي هذا كهر مدحوين محمد عبد الله فرماجو لو يدي سيدوكو كسبتي شعبينها كتاجرة تاسوعة إنك بلان إنت أي تاجران مدحوين يا شكله بس محوك جوا محوسة كده عرنتاسي المقال كان كجا هذا دونا يسود وراء أصحابته مقال كان يلا جري سيد دونا وقارا مقال كا madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dhowr su'aalood laga weydiiyey arrinta ku saabsan qaabka ula macaamilo shacabka Soomaaliyeed ama qaabka uu ku kasbaday shacabka Soomaaliyeed taas ay adag tahay in madaxweyne uu kasbado intaano shacab asigoo sheegay in mar walba shacabka ay yihiin kuwa dulman la dulmiyo waxa uu kaloo sheegay in shacabka aysan ahayn kuwa isdagaala iyaga balse mar walbana dhibaatada iyaga ay soo gaarto waa hadal run ahaantii damqasho mudan markii aad fiiriso hadalkaasi sababtoo ah waa runtii shacabka Soomaaliyeed mar walba waa kuwa dhibaatada soo gaarta balse adigu dhegeystow maxay kula tahay arrintan awraahdaada waa ii muhiim ee qaybta komitiga oo si wala wadaag si la dhammayso muuqaalkan ilaa iyo dhammaadka haddii aad tahay taageero farmaajo madaxweyne sida muuqanaysa tan iyo markii lagu doortay iyo xilligaaga ololaha iyo hadeerba taageero xoog leh baad ku dhex leedahay shacabka Soomaaliyeed wala uu jiro mucaarad hadana marka loo barbar dhigo muxaafidka dawladda taageersan shacabka ahi aad buu u badan yahay maxaad ku kasbatay baad leedahay shacabka intaas leeg ee ku taageersan shacabka Soomaaliyeed waa dad runtii wanaagsan xaqiiqo way meel kasta ay joogaan waxa dagaalsan iyaga ma aha waxa dib ku haystan waa iyaga shacabka Soomaaliyeed haddii ay arkaan qof iyaga danooda ka shaqeynaya aniga kaligay maaha qof walba ay arkaan danooda ka shaqeynayo khasab way raaci marka anagu waaba sheegnay waxaan dawladdan dadka iska leh marka inay haystaan oo xafitaan oo ay la shaqeeyaan yaa waxaan ku gaari karnaa mustaqbal wanaagsan iyo horumar marka aniga ma aha waa shacabka dad wanaagsan ah marna waa la khaldaa oo de madaxdu waa khaladaa marna waxa la rabaa in wax wanaagsan lagu hago marka insha Allah anagu waxaan isku dayaynaa aan ka shaqeynaynaa aan ku dadaalaynaa inaan ku hagno wax wanaagsan anagoo ka cibro qaadanayna khibradihiina soo maray muddadii burburka iyo intii dawladdu ay jirtay oo laakiin dawlad liidatay ay ahayd oon awood lahayn anagoo ka faa'iideysanayna marxaladaasna soo maray anagoo ka faa'iideysanayna iyo duruufahaasna soo maray inaan dadka ku hogaamino ama aan u iftiimino wax wanaagsan haddii loo tilmaamo dadka Soomaaliyeed wax wanaagsan iyaga kaaga hormaraya waa dad madax furan waa dad maxaan ku raahdaa aad u caqli badan oo firfircoon marka haddii la tuso wax wanaagsan iyaga boqol jibaar kaaga hormaraya haddii wax xun ay arkaan iyaga kaaga hormaraya marka insha Allah waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu nagu aadiyo wax wanaagsan iyaguna ay nagu raacaan nagu taageeraan inaan ka shaqeynayno horumarkooda iyo mustaqbalkooda madaxweyne adigoo mahadsan filashada shacabku qabo iyo waqtiga dawladdu haysato islama eka dawladku waxay ka sugayaan dawlad dhameystiran dawladdii hore Soomaaliya xilligeedii burburkii ka hor jirtay mid lamid ah hamuun noocaas ay qabaan maxaad u sheegi lahayd oo aad leedahay waqtiga noo haray waan qaban doonaa ama way noo qorshaysan yihiin oo dawladnimada la xiriira dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waa dhab expectationka iyo filashada ay dawladdan ka filanayaan wax weyn waa wax jira iyaga kaligood maaha shucuubta adduunka waa saas markii burbur la galo
waxay filayaan dowladdii timaadaba markaasi inay markiiba ay dalka barwaaqo geliso. xaqiiqda jirta waxay tahay oo la rabaa qof walba inuu aamino ama maskaxda ku hayo ama maanka ku hayo, waxay tahay in wax la dumiyo waa hal maalin, laakiin wixii la dumiyey in la dhiso sanaday qaadataa. marka dalku waa burburinay, dhismihiisa marka waxay qaadanaysaa intuu dhismayay in la eg ay qaadanaysaa. wax cirka uga imaanaya ma jiraan oo u dhisaya, iyo dowlada shisheeye oo u imaanaya u dhisaya ma jiraan. saaxiibo waa jiraan gacanna siin kara, laakiin iyagaa laga rabaa inay dhistaan, inay ku hadleeyaan keliya ma aha 10 qof ama 20 qof oo xukuumadda ku jirta oo aniga aan madaxweyne u ahay iyo golaha shacabka. iyagaa laga rabaa burburkii dhacay sidii looga kabsado inay hawshii ay qayb ka noqdaan. dhismahana dowladeed waxay qaadataa iyada naftigeeda muddo dheer iyo qaata, maxaa yeelay iyada naftigeedu waa burburtay muddo dheer ayaa lasoo dhisayay 30 sano ah intuusan dhicin dowladda dhexaysan lumin. 30 sano waxaa la baranayay waxyaabo badan, khibradaa la isu gudbinayay, wixii waa lumeen. marka institutionska naftigooda dhismahoodu wuxuu u baahan yahay khibrado iyo isu banayn iyo knowledge transfer wax la yiraahdo iyo waqti iyo u baahan tahay. ciidanka dhismihiisa oo isna muhiim ah waqti u baahan yahay isaga naftigiisa. marka mid inay ogaadaan ayaa loo baahan yahay shacabka. burburku sartaan in aan dumino waa saacad wey, laakiin markaa weydiiso waa sar kaliya ogow. markaa weydiiso meeqaa lagu dhisay waxaa lagu leeyahay sanad. marka dowlad maxaa moodaa marka ma fahamtay? dowladdu waxa weeye waa sanado yaa lagu dhisaa, dal sanadaa lagu dhisaa, barwaaqo sanadaa lagu dhisaa. dhirtii iyo geedihii la abuurto iyo beertii la abuuro hadda hore kama soo baxdo, waa la sugaa. marka shacabka Soomaaliya waxaan leeyahay sabr lahaada, patient lahaada, dulqaata. dowladda keliyana ha saarina culayska, idinku naftigiina qaybtiina ka qaata. waxa ugu horeeya oo la rabaa inay qayb ka qaataan inay dhiibaan canshuuraadka ha u arkaan inay tahay qaran inay tahay oo ay qaranka ay siinayaan. markii canshuurta ay dhiibaan oo dowladdu ay yeelato dakhli fiican oo soo gala, wax badan bay ku qaban kartaa. annagana ammaanada inaan ilaalino oo wax alla wixii ummadda ay dhiibaan siday tahay oo adeegooda iyo danahooda aan ugu qabanno. laakiin hadday iyaguna gacmo xirtaan ama jeebka xirtaan oo ay sugaan annaga inaan u baryo tagno caalamka oo dowlado shisheeye oo ismaamulay iyo shacab shisheeye oo ismaamulay oo dhiibay maxaanku rahda canshuurtooda dhiibay, wixii ka soo haara haddii aan weydiisano annagoo dhan iyo ceeb nagu tahay. waxay noo tahay qabjab iyo noo tahay, waxay noo tahay maxaanku rahda foolxumo iyo ihaani noo tahay. marka wax walba gacanteena ku jiraan, meel kale inaan ka raadina maaha. hadda waataan kuu sheegan ku yiri isku tashi, waa dad isku tashaday. marka haddii dadkaasi ay ku tala noqdaan dowladooda oo ay canshuurta lagu leeyahay ay siday tahay u bixiyaan, waxaa uga soo baxaya inay iskuuladooda ilmahooda ay u helaan iskoola lacag la-aan ah, in maxaanku rahda adeegyadii dowladda oo ay lahaayeen nabadgelyada ugu horeyso inay helaan, in cisbitaallo meel walba aan gaarsiino, in jidad meel walba aan ka bixino, in eerabooro aan dhisno, dekedaha inaan badinno, maxaanku iraahdaa khayraadka dalkii inaan soo saarno, shaqo abuur in la keeno. marka wax badan ayaa ku jira. qofku wuxuu bixinayo oo canshuuraha ah isagay si toos